waxaan rabnay inaan idin soo dulmarno xaaladaha cudurka coronavirus COVID-19 ilaa iyo maanta tirada shalay waxay ahayd 21 maqribkii waxaa soo korortay 4 xaaladood kale oo soo biirtay oo magaalada Muqdisho ah tirada guud waxay noqonaysaa 25 ilaahay ha u naxariisto waxaa naga dhintay maanta oo geeriyooday ruuxii labaad uu geeriyooday coronavirus wadankeena wuxuu Allah u naxariistay xildhibaan wasiir muumin khaliif muumin ilaahay waxaan ugu baryaynaa jannada inuu ka waraabiyo intii uu geeriyoodayna sabir iyo iimaan siiyo sidoo kale intii tacsida taabatay waxaan rajaynaynaa sabir iyo iimaan xaaladaasaan sheegnay waa 25 guud ahaan 2 waa naga geeriyooday Allah u naxariista 2na waa buskootay 16 guryahooday ku xakamaysan yihiin oo isku hayaan 5 kalena waxay joogaan isbitaalka iyo xalan waa xaaladda guud waxaan ku celinaynaa mar walba cudurkii wuxuu ku sii fidayaa bulshada dhexdeeda Soomaalida iyo muwaadiniinta waxaan u sheegaynaa mar walba inay taxadaraan inay iska xakameeyaan cudurka waajibna wada saaran in qof walba uu dhinaciisa ka dadaalo wacyigelinta inaan ku wada dadaalno in ma aragtay aanan meelaha buuqa iyo ciriiriga dadka isku dhow yihiin aanan la tegin in dibadbaxa ilmaha laga yareeyo maadaama iskuullada ay xiran yihiin xafiisyadii aan la tegin aanan meelaha shirarka la joojiyey in ma aragtay habeenkii in la baxo maqaayadaha iyo hoteelada in la joojiyo si kasta oo lagu xakameyn karo ka hortagga waa waxa ugu fiican wadankeena ma xamili karo dhibaatada uu cudurkan ku hayo meelaha qaarkood ee adduunka ka dhacday waa dhibaato culus waxaan nahay wadan nugul waxyaalaha aan samayn karno oo aan ku wada dadaali karno waxay tahay inaan cudurkan u aragno cudur aan ka hortagi karno bulshada dhan ay ka midaysan tahay ka hortagga iyo wacyigelinta ilaahay waxaan ka baryayaa inuu dhibkiisa naga ilaaliyo annagana aan isku dardaaranno waxyaalaha muhiimka ee loo baahan yahay oo sida dadka waliba waaweyn ama dadka cudurrada raaga qaba inay isxakameeyaan oo aysan barnaamijyada u bixin is ilaaliyaan laga ilaaliyo dadka inay is salaamaan maaragtay gacmaha in la dhaqdo oo saabuun lagu dhaqdo ilaa iyo 20 inbirqsi in maaragtay nadaafadda guud ahaan lagu dadaalo in la iska yareeyo wax kasta oo calaamado khatarta cudurka keeni karta wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha caafimaadka guud ahaan waxay ka bixiyaan wacyigelin sidoo kale culimada takhaatiirta allaale cidii maaragtay ka wacyigeliso oo wacyigelintii sax qaado ila ogaad la barto waxaan inuu qof kasta ku dhici karo uusan lahayn cadaan iyo madow uu kala lahayn oo diin kala lahayn laakiin qof kasta uu dhici karo marka waxaan isbaraynaa isku adkaynaynaa haddii alla yiraahdayna ku dadaalno cudurkan inaan xakameyno ilaahay dhibkiisa naga haay intii u dhimata Allah u naxariisto sabir iyo iimaan Allah ka siiyo intii ay ka baxeen ilaahayna waxaan ka baryayaa naxariistiisa janno inuu siiyo iyaga annagana gadaashood uusan na fidnayn